dad badan ayaa jiro oo madax ahaa hataa qaarkood oo ku ceeboobeen bahashan si ay u isticmaalayeen. Maxaa yeelay iimaylada ay soo dirayaan markii ay qoraalada soo gudbiyaan waxaa la leeyahay maasha Allah dadkan khatar waa inkastoo qofkii sii fiiriya uu dareemi karo in waxaan ChatGPT lagu soo qoray. balse markii shirarka la isugu yimaado foolka fool la rabo qofkii inuu wixii uu maalmahan soo qoray uu sharaxo qofkii laba eray isma daba dhigi karo. maskaxdiisa dhan blank ayay noqonaysaa. waadan salaam akhaari meel baa joogtaan oo mar kale iyo Mawlid Xujaale. waayadan dambe meela aragtay dad badan oo aan horaan looga baranin inay luqadda Ingiriiska wax ku qoraan si aan caadi ahayn wax ugu soo qoraya ha noqoto dad dawladda u shaqeeyo wariyaal ama ha noqoto arday ama qof iska caadi ah. Ingiriiski ayaa maalmahan dambe si aan caadi ahayn qof walba u soo qoraya. way iska caddahay marka dhammaanteen waxaan isticmaalaynaa ChatGPT iyo aaladaha kala duwan ee AI-da oo loogu talagalay in wax lagu qoro. dhibaatada ugu weyn ee jirta marka waxaa weeyaan oo aan rabaynaa in la wadaago dad badan ayaa jiro oo madax ahaa hataa qaarkood oo ku ceeboobeen bahashan si ay u isticmaalayeen. maxaa yeelay iimaylada ay soo dirayaan sida ay barnaamijyada u falanqeynayaan markii ay qoraalada soo gudbiyaan waxaa la leeyahay maasha Allah dadkan khatar waa inkastoo qofkii sii fiiriya uu dareemi karo in waxaan ChatGPT lagu soo qoray. balse markii shirarka la isugu yimaado foolka fool la rabo qofkii inuu wixii uu maalmahan soo qoray uu sharaxo qofkii laba eray isma daba dhigi karo. maskaxdiisa dhan blank ayay noqonaysaa. sababtuna waxay tahay wuxuu isu dhiibay AI-dan iyo ChatGPT-gan ayuu wax walbo oo la soo weydiiyey u adeegsanay inuu uga soo jawaabo. hadhow markii human to human ay timaado oo la isor fariisto waxba ma xusuusan karo ilaan wixii dhan waa wax loo soo qoray oo loo soo yeeriyey. hay-adaha waaweyn ee dowladaha ama shirkadahan oo caalamiga ah mar kastoo ay isticmaalayaan ama bahladan AI-adan ay soo baxdayba noocay doontaba nooc kastoo la update gareeyo waxay iyagana soo saaraan shuruuc oo hagaysa shaqaalaha qaabka ay u isticmaali lahaayeen. nidaamyo ayaa jiro policy ayaa la soo dejiyaa oo shaqaalaha lagu tababaro inay u isticmaalaan adeegan oo AI-da ah sida loogu talagalay. hadduusan jirin nidaam ama guidelines ka dambeeya oo AI-dan ay isticmaalaysid oo aadan raacaynin nidaamkaas waad ku ceeboobaysaa adigana maaragtay dhibaato ayaa kaaga imaanayso mustaqbalka. waxaa jirto shuruuc kale oo la ilaaliyo oo privacy-ga maaragtay dadka aad u shaqaynaysid xogtooda ilaalinta inaad wax walba gelinin. maxaa yeelay haddaa adigaba wax walba oo mashruuc ama barnaamij ah ka shaqaynaysid ama hay-ad ama dowlad ha ahaado ummaddii bulshada u shaqaynaysay aadan u aabayeelaynin oo aadan kala garanayn waxa aad gelinaysid meeshan iyo waxa kale xogtii dhan waxaad u dhiibaysaa markaas computer qadkii ayayna wada gelaysaa. marka haddii meesha aad ka shaqayso goobta aad ka shaqayso hay-adda ama dowladda noqoto haddaysan nidaam iyo shuruuc u degan oo guidelines aynan jirin adi isku day inaad maaragtay mas-uuliyad isa saartid aad ogaatid waxyaabaha aad gelinaysid meeshan inay dhibaatada u keeni karto aad ogaatid in wax walba aad u isticmaalaysid in hadhow adiga kaa daba imaan karto oo aad ku ceeboobi kartid. markii laga soo tago nidaamyadan kale oo shuruucyada aan la raacaynin qofka long termka waxaa arkaysaa inay maskaxdiisa ku dhacayso creativitygiisa uu hoos u dhacayo. maxaa yeelay bahashan waxay u diyaarsan tahay qaab aan caadi ahayn oo waxay kuu noqoni kartaa qof 24 hours maaragtay macallin ama coach oo ku hortaagan. haddii marka aad isku dhiibtid hadhow waxaa kugu dhacayso in ilaa dhowr sano kadib creativity-gaaga maskaxdaada ay dhulka gasho oo laba eray aad isdaba dhigi karin waxba aadan qoran karin waxba aadan ka jawaabi karin. bulshadiina marka way saameynaysaa ardaydii oo kale iyo shaqaalihii dowladda iyo dadka kale oo maaragtay ahaa bulshada hogaaminaya wariyaal hadday noqoto. AI-dan iyo aaladahan kala duwan isticmaalkooda waxay u baahan tahay barasho kaliya ma aha inaad email aagelisid uu kaaga soo jawaabo. waxaa jira tababaro caalami ah oo kala duwan oo loogu talagalay shaqaalaha ama qof walbo qaabku maaragtay u isticmaalayo AI-da in la baro oo lagu hago. marka waxaan kugula talin lahaa tababaro qaarkood waxaa jirta oo free ah oo online-ka aad ka helaysid LinkedIn aad ka heli kartid oo aad maaragtay ku baranaysid qaabka aad u isticmaalaysid. taasoo waxay kaa caawinaysaa inay bahashan kuu noqoto waxa adiga hagtid aysan kuu noqonin wax adiga ku bedelo. in badanoo naga midna wayn replace garayso already oo iyaga maaragtay la wadaa oo qofkii mas-uulka ahaa dhanbo waxaa la macaamulayo waa computer. saas darteed marka waxaan kula talin lahaa dhammaan in maaragtay number 1 aad tababar qaadataan, number 2 aad iska ilaalisaan xogta aad u dhiibaysaan, number 3na maskaxdaada iyo shakhsiyan iyo horumarkaada iyo kobcaagan inaad ka fikirtid saameynta ay kugu yeelan karto long termka oo mustaqbalka fog in aad dhibaato kala kulmi kartid oo maskaxdaada ay dili karto. waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahantay waxna aad ka faa'iiday. fadlan la wadaag asxaabtaada wixii talo iyo tusaale ah iyo commentina hoos iigu soo reeb. waa mahadsantahay.